sii socon doona xakameyn la'aanta saxarada iyo kaadida taas oo keenaysa dhaawac ku yimaada jirka haweeneyda sida caabuq, xanuun kaliyaha, nabro xubnaha ay ka imaanayaan dareeruhu iyo dhalmo la'aan, dhaawac maskaxiyan ah iyo mid jir ahaaneed oo u wada kulma. hadda waxaad heli kartaa talooyin caafimaad. fadlan ka mid noqo saaxiibada bukaandeed oo guji subscribe. isku furanka dhalmada. isku furanku waxa uu yimaadaa marka ay fooshu daahdo ama ay awoodi weyso hooyadu inay si caadi ah u marsiiso ilmaheeda duleelka dhalmada markaas oo ay fooshu maalmo qaadato. arrintan waxaa sababa ilmaha oo aad uga weyn duleelka dhalmada, uurku jiraha oo qaab qaldan isku dayaya inuu u soo maro duleelka dhalmada, ama kafka oo aan u diyaar ahayn dhalmo ama aan si wanaagsan u kala bixin. cadaadiskaas madaxa ilmaha ee sida qaldan u riixaya xididada dhiigga ee xubinta taranka, kaadihaysta iyo duleelka saxarada ayaa dhiigga ka xira xubnaha, waxaana yaraada ama meesha ka baxa oksijiinkii xubnaha soo gaarayay, markaana waxaa dhacda inay dhintaan qaybihii uu dhiigu ka xirmay. intaa kadib qaybaha dhintay ee xubnaha aan ka soo hadalnay ayaa samaysta duleelo isku furan, isla markaana isku gudbin kara dareerihii soo mari jiray xubin walba, waxaana dhacda in kaadihaystu xubinta taranka kaadida u gudbiso, sidaana kaadidu mar waliba si ogaan la'aan ah uga socoto xubinta taranka, iyo in duleelka saxaradu ay u gudbiso saxaradii xubinta taranka, isla markaana saxaradu ay ka soo baxdo xubinta taranka. waana sababta loogu bixiyay isku furan. yaa uu ku dhici karaa isku furanku? inta ugu badan waxa uu ku dhacaa isku furanku dumarka ku nool wadamada dakhligoodu hooseeyo ama soo koraya, waxaana loo aaneeyaa in aysan helin dumarkan xilliga dhalmada gargaar caafimaad oo isu dheelitiran. haddii fooshu ku adkaatana dumarkan waxay iskaga adkaystaan xanuunka haya ilaa ay ku dhowaadaan dhimasho. kadib marka ay ilmuhu noqdaan dhimasho ama xaalad u dhow oo alle kala keeno, waxaa samaysma duleelka isku furanka. intaa kadibna waxaa bilowda inay cishan waayaan kaadida, saxarada ama labadaba. sidee kula kulmaan takoor? haddii aan laga daweyn gabadha isku furanka, waxaa sii socon doona xakameyn la'aanta saxarada iyo kaadida taas oo keenaysa dhaawac ku yimaada jirka haweeneyda sida caabuq, xanuun kaliyaha, nabro xubnaha ay ka imaanayaan dareeruhu iyo dhalmo la'aan, dhaawac maskaxiyan ah iyo mid jir ahaaneed oo u wada kulma iyo istakoorid. intaa kadib gabadha isku furanta ninkeeda ayaa diida oo xaafada ka ceeliya sabab la xiriirta urka saxarada iyo kaadida aysan cishan karin ee ka soo uraysa, taas oo ku riixda gabadhaas inay nolosha ka quusato, faqiir noqoto, isla markaana mid jilacsan oo isku buuqda noqoto. daweynta isku furanka. dib u dayactir aad u fudud oo lagu sameeyo xubnihii isku furmay ayaa loogu hagaajiyaa si dhib yar, laakiin nasiib darro haweenka ay arrintan haleeshay ama cudurkan uu ku dhacay marna ma rumaysna inay ka bogsan doonaan oo la daweyn karo xanuunkooda. waana sababta ay haween badani maanta ugu dhimanayaan isku furanka ayagoo aan helin daweyn, waxaana qayb ka ah dhibaatada haweenka oo ka xishooda isla markaana aan raadsan caawimaad caafimaad. waxaan kula talin lahaa haweenka xanuunkan wajahaya in aysan xishoon oo ay tagaan hospitaalka ugu dhow si loogu dabiibo, dibna ugu soo noqdaan noloshoodii quruxda badneed. inta ugu badan waa bilaash daweyntiisa xanuunkan oo waxaa bixiya hay-ado.